بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. waxaa jirta su'aal inoo rahmanayd oo ah haddii nin shiikha ama cilmi aad ku malaynaysid oo wax kuu sheego ma weydiin kartaa daliil ha xaq baad u leedahay inaad weydiisid waliba waa sida fiican maxaa yeelay waxa raacaysa adigu shiikha ma ahe waa daliilka wax badan bay culimadu waxay yiraahdaan kutubaha waxaanu ku haynaa kaasaan ku haynaa kutubaha wax badan baa ku yaala daliilka la raacaya haddana waxaan galaynaa tobankii labaad oo su'aalihii kala duwanaa ma waxaa jira culimo loo yaqaan aqtaab iyo awtaad iyo wixii la mid oo adduunka ilaahay uu xil saaray inay maamulaan ma waxaa jira culimo loo yaqaan aqtaab awtaad iyo wixii la mid oo adduunka ilaahay u xil saaray inay maamulaan ama wax ka maamulaan maya إلهي بادبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلهي السمدغ أيو كسو دبر أمرك السقم ويمرك متك واحد دبره ما ها مقرن يساقف حتى نبي إنه لما مامولين إلهي الدونك ليس لك من الأمر شيء بوير إلهي أدوك أمرك وحكم ليد فما بالك من مسكين أو قرونها عندما الشيء أو فلان يولي لليه مركا وحا قطاب لي يراهدو أو كون للك هيا أما سماواتك وحكم معمولة مجران قف كتار رميانا ومشرك محايا لوثنية محاواي وثن ووحن على عابدين إلهي غير كيس لبقية طبعا عن الدهيل بكجيلة weesada ma buriyaa cunida hilibka geela ah weesada ma buriyaa arrintan waa arrin khilaafiya bayna alculamaa culumana waxay leeyahay waa buriyaa culumana waxay leeyihiin ma buriyo laakiin waxaa xoog badan in laga weesaysto maxaa yeelay xadiiska nabigaasa ahaa calayhi salaatu wassalaam ninkii weydiiyey hilibka ariga ma ka weesaysanaa wuxuu yidhi haddaad doontid hilibka geela markuu weydiiyana wuxuu yidhi nacam 13 sheeg labada nooc oo ay najaasadu leedahay sheeg labada nooc oo ay najaasadu leedahay najaasadu waa laba nooc mukhaffafa iyo muqallada mid la khafiifiyey iyo mid muqallada ah kaadida madiga muxuu ahaa saxarada waxyaalahaas oo dhan waxa weeye najaasa mukhaffafa dhiigga kulli waa najaasa mukhaffafa najaasa muqalladana waxaa laga wadaa sida khansiirka hilibkiisa taabashadiisa iyo eyga dhacaankiisa labadaas waa si gaara loo nadiifinaya iyaga oo ka duwan mukhafafada waa iska dhaqaysaa bes waa dhabaatay dharkii kaa gaartay iyo wixii laakiin tan maya 7 mar 8 mar oo 7 mar ay biyo tahay hal marna carro yahay 14 masaxidda khufeynka ama sigsyaha intee la ogol yahay masaxidda khufeynka waxa loo yaqaan ama sigisyaha la masaxo intee muddaa la ogol yahay khufeynka waxa la yidhaahdo waagii hore harag bay ka samaysnaayeen markii lugaha agaartid waa la masaxi jiray intii aad dhiqi lahayd waa masaxaysa kor baad ka masaxaysa laakiin hadda maadaama khufeyn aan la qaadan oo bedelkooda la qaato sigisyo culimmadu waxay yidhaahdeen iyagana waa la masaxi karaa iyagoo looga qiyaas qaadanayo khufeynkii kolka intii khufeynka la masaxayay ayaa iyadana la masaxaya qofka musaafirka ah 3 maalmood ayuu masaxayaa mar walba uu wasaysto waa masaxaya lugaha dushooda lugaha inta sare ayuu masaxaya hadduu joogo laakiin magaalada oo muqiim yahay ama tuulada degan yahay qofkaas 24 saac ayuu masaxaya goormayse bilaabanaysaa goorta uu masaxo
bay 24 bilaabanaysaa waa weeseysay weesadii baa 24 saac ka bacdi ka jabtay waana muqiim markaasay u bilaabanaysaa 24 saac 15 irbadda la isku duro ramadaanka soonka ma burisaa irbadda ramadaanka la isku duro haddii qofku ramadaanka irbadda isku duro soonkii ma ka jabayaa labaa loo kala qaybinayaa irbaddu irbad daawo admiya mise waa irbad nafaqa ah irbad daawo ah hadday tahay ma jabinayso laakiin irbad nafaqa hadday tahay oo jirkiisa lagu noolaynayo way jabinaysaa warku saha kuugu caddaado 16 sheeg waxyaalaha ramadaanka jabiya sheeg waxyaalaha ramadaanka jabiya ama uu ku buro adoo sooman waxyaalaha uu ku buro irbadii baa ka mid ahayd nafaqada lahayd cunno iyo cabitaan galmo wax gudahaaga gala oo dhuunta aad ka laqdid sigaysiga gaalnimada waalida ismatajinta suuxiddaasoo muddo dheer ah intaasoo dhan soonku waa ku buraya 17 haddii qof laga hor istaago cumro ama xaj isagoo u diyaar garoobay oo dariiqii haya muxuu samaynayaa haddii qof isagoo cumro aaday matalan dariiqii ama aeroboorkii laga soo celiyo la yidhaahdo geli maysid muxuu samaynayaa qofka isaga ah hadduu hadyi wado oo dhulka marayo ama gaari saaran yahay oo hadyi wado meesha uu joogu ku xalaaloobaya wuxuuna gowracayaa hadigii uu waday laakiin hadduusan hadyi uusan wadin waxba korkiisa ma aha halkaasuu ku xalaaloobi waxaase ka fiican hadduu baqayo in la soo celiyo inuu ku xirto markuu xiranayo allaahumma in xabasanii xaabisun famixillii xaysu xabastanii ilaahow haddii cid i xabisto iga celiso xajkii ama cumradii waxaan ku xalaaloobayaa meesha laygu xabasay meeshaad igu xabastay oo laygaga celiyey macnaha sideed iyo toban atixiyaadka markaad akhrinaysid ma farta inaad taagtidba murdisada la yidhaahdo mise waa dhaqdhaqaajinaysaa atixiyaadka markaad akhrinaysid farta murdisada la yidhaahdo ma taagaysaa mise waad dhaqdhaqaajinaysaa labaduba waa jiraan waa arrintuna waa waasic inaad farta dhaqaajisidna waad heli kartaa oo axaadiis baa loo hayaa haddaad taagtidna iyadana adila loo hayaa marka labadaba waxaan kuugu sheegayaa arrintaa iyada inaadan la yaabin qof agtaada ku tukanaya hadduu farta dhaqaajiyo adiguna aad dadka taaga tahay ama haddaad adigu dadka dhaqaajiyo tahay oo isagu taago 19 haddaad hindhistid maxaad samaynaysaa haddaad hamaansatidse maxaad samaynaysaa haddaad hindhistid maxaad samaynaysaa haddaad hamaansatidna maxaad samaynaysaa oo sunno ah haddaad hindhistid alxamdu lilaahi baad odhanaysaa alxamdu lilaahi baad odhanaysaa qofka ku maqlaayana yarxamuka allaahu buu ku odhanayaa adna waxaad ugu jawaabaysaa yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum ma garatay marka hindhisadu waa sidaas hamaansiga laakiin wax la odhanaya ma jiraan qaar acuudu billaahi min ashaytaan rajiim le baan arkay wax daliilay leedahay arrintaasu ma laha gacantaadaad gedinaysaa markaasaa saas bidixda ah
markaasaad ku xiraysaa afkaaga iyadoo gadisan waxaadna iska ilaalinaysaa inaad cod noocaasa bixisid waxaad sideedana isku dayaysaa inaad bixirtidba oo aadan hamaansan laanna ilaahay hamaansiga waa necab yahay himbisadana waa jecel yahay himbisadina waxaan ka soo ilaaway iyadan maradaada ayaad ku xiraysaa ama wixii aad haysatid baasankaaga ku xiraysaa 20 cadday salaanta lagu salaamo dadka muslimka ah iyo tangaalada lagu salaamo kala cadday salaanta qofka muslimka aad ku salaamaysid iyo tan gaalka aad ugu jawaabaysid waxaadna kaga jawaabaysaa taas commentiga ama tacliiqa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam